سفيان الثوري أئمة المسلمين تقوى وينا كمت أها وحير هويدا ييرتي markaas waxay tiri wiilkaygiyo cilmiga himo weyn aan kale himo aad u weyn aan kale meelaha cilmiga lagu aqrinay inta badan raga isku xiriirinay xogaa inaan xiriirsada way ugu adag waxaan rabaa inaad hamiga iyo murugada aan cilmiga u qaba iga baahi tirto anna baahidaada dhaqaale aan ka kaafiyo oo aan shaqadaas qaybsano si aan ajirka wada yeelano hooya itiri markaas ii gadayuu yiri waxa weeyaan kutubihii boorsadii lagu qaadayay kiishad yarna waxa iigu shubtay lacag waxa iigu tiri masjidka tag hana igu soo laaban xalqada adoon ugu sareey xalqada aad dhex fadhido wiilka ugu sareeya adoon ahayn kuma arki karo wax dhaqaalaan xaqayga u soo fiiri meel kale ha ka fiiri ilaa uu noqday imaamkii muslimiinta imaamu maalik wuxuu yiri hooyadeeya ii yeertuu yiri anoo baranaya turumbada ama kabanka sida loo garaaco kaasay tiri kaalay maandhow kanu kuma suubado wax wanaagsan maaha lamana barto waa ii labistuu yiri dhar cadcad imaamadna waa ii xirtay markaasay rabiicatu ra'yi shiiqaas aaday tiri dhaqankiisa fiiri intaadan ba cilmi gaarin hadigiisa ku dayo cilmigana ka qaado imaamadda iyada u xirayday markuu baxayo imaamkii muslimiintu noqday rabiica laftirkiisa asagoo caloosha ku jira ayaa aabihiis jihaad u bax 20 iyo dhowr sano maqnaa markuu soo laabtay ayuu weydiiyay xaaskiisa caaw xooli aan kaaga tagay rabiican ku baxshay wiilkan waxa tir caloosha kii ku jiray haddana caalimkii Madiina weeye dhaqaalihi isagan ku baxshan ku soo saaray ilaa uu caalimka Madiina noqdo hooyo caalimad ah rabbaaniyad ah saalixad ah waa aasaaska bulsho wanaagsan waxaana taas keenaya sideeda rasuulka markii Allah soo diray sallallahu alayhi wasallam qof kasta oo rumeeya waxa rabbul caalamiin ku waajibiyay shaqadii rasuulku hayay sallallahu alayhi wasallam ee ah in dadka ilaahay lagu xiro in uu asna u istaago sida rabbul caalamiin uu yiri قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إلهي وينا سبحانه وتعالى النبي صوبان وحكيري وحاتر النبي صوبان وطنوا ودديدي ضدك الله كحرية وغيرية كالجيس إني عابدان تاسان ضدك وغيرية وحان أنا أقول له أو واحد ضدك أنا وغيرية قرنا waxaana dadka ugu yeeraya anoo waxaan ugu yeeraya aqoon u leh saasna waxa sameeya aniga iyo intii raacday marka waxa nabiga loo soo diray rag iyo dumar waa u siman yihiin shaqadiisii laga dhaxlay warasada waxa weeyaan warasatul anbiya ay dhaxleenna waa u siman yihiin gabar kasto muslimad ah markaas ay rasuuliyada saaran waxa kamid ah in ay barato diinkii nabiga lala soo diray sallallahu alayhi wasallam shaqadii nabigu hayayna ay wax ka qabato haddii taasu ay timaadana bulshada way islaaxayda way hagaagayda waxayna qaban karaan wax badan oo raggu qaban karin duriyadii ayaga macalinka koobaad u ah naasixa iyo qofka la taliyaha wanaagsan ee zawjkana waa ayada sidaas daraadeed ay tahay awoodda ugu badan waxa gaaladu ku bixiday inay baabi'ido oo ay fasahaadido dumarka maxaa yeelay waxay dareemayaan aasaaskaas ummadda hadduu u badbaado ummaddaanu inay hagaagaydo diin ahaan akhlaaq ahaan markaasaa loo aasaaska la raba in laga dumiyo marka gabdhaha muslimaadka qayr badan Allah in siiyo waa in aad tusaale ka dhigataan Khadiija binti Khuwaylid Aisha binti Abi Bakr Siddiq iyo kuwii la midka ahaa oo aad noqotaan gabdho diintooda aqoon u leh qiiro iyo mas'uuliyad u leh soo saara duriyad dayba guryaha ay joogaan ogaada inay mas'uul ka yihiin tarbiyadooda ilaahay hortiisa la weydiina sidoo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam wal mar'atu ra'iyatu fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha كلمتنا انت اصلا كو قابلنا الله سبحانه وتعالى على صلى الله وسلم وبارك على نبينا